madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanye waxa si diiran oo kaliya laab ah maamuuskeeduna aad u sareyso ugu soo dhaweeyay xafiiskiisa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Master Haile Mariam Desalegn kaasoo martiqaad rasmi u fidiyay madaxweynaha Soomaaliland kulankan uu madaxweynaha Soomaaliland la yeeshay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Master Haile Mariam oo ahaa mid muddo qaatay ayaa waxa lagu lafaguray intii uu socday kulankaasi xiriirka saaxiibtinimo ee fog u dhaxay iyo sidii labada dal ay uga wada shaqayn lahaayeen wax wada qabsi buuxa oo dhaxmara gaar ahaan dhinacyada amniga horumarinta dhaqaalaha kor u qaadista ganacsiga ilaalinta dimuqraadiyadda iyo arrimo kale mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanye madaxweynaha Soomaaliland waxa uu warbixin dheer oo ku saabsan marxaladii kala duwan ee Soomaaliland soo martay ka siiyay Master Haile Mariam Desalegn madaxweyne Axmed Silanye waxa uu si cad ugu sheegay madaxda Itoobiya in jamhuuriyadda Soomaaliland ay beesha caalamka uga fadhido in aqoonsi buuxa la siiyo hormoodna ay ka noqdaan dalalka qaaradda Afrika siiba wadamada Soomaaliland jaarka la madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii uu dhamaaday shirkaasi faahfaahin ka siiyay warbaahinta ku weelinisay sodaalkiisa arrimihii ay ka wada hadleen ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida wada hadalka naafacaya wax wada qabsiga labada dal aan isla gaadhnay xiriirka Itoobiya Soomaaliland ka dhaxeeya waa mid saaxiibnimo weyn ku fadhiya waa mid wada qabsi ku fadhiya waa mid iminkan inaan soo xoojino mustaqbalka oo halka rooga si talaabsano oo dhinac walba oo leh horumarinta labada dal iyo wada shaqayntooda haday tahay xagga ganacsiga haday tahay xagga wada qabashada haday xagga dekada xagga muxuu ahay wadooyinka dhinac walba wax ka wada qabsan ayaan isla garanay waana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inay wada shaqayntayada iyo xagga nabadgelyada ay sii kordho oo si weynaato waxtar labada dalba anfaca oo noqdo insha Allah taala madaxweynaha Soomaaliland ayaa inta uu joogo loogu talagalay baabuurta u khaaska madaxweynayaasha iyo madaxda sare ee dalka yimaada kulanka madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha ayaa sii xoojinaya cilaaqaadka labada dal waxaana ku weelnaysay madaxweynaha Soomaaliland gudidii farsamo ee wada hadalada Soomaaliland uga qayb galasay iyo madaxda safaarada Soomaaliland ee Itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanye kulanka ballaaran ee uu la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa ka mid noqonaya kuwa lagu dardargelinayo xiriirka saaxiibtinimo ee u dhaxeeya wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya mana aha kulankii ugu horeeyay ee madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa waxaana uu ku soo beegmaya xilli wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada hadal ballaaran ku yeelan doonaan maalmaha fooda inagu soo ay dalka Turkiga أحمد سكي داير حسن تلفزيون كقرن كسوماليلاند مقالة مدحضة ودن كإثيوبيا أديس أبابا